koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa Kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhagayste dadku waa Kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan aryaada manabada waranimanku reer muduga ee waliyaabi ana sababtoo iyo weerorayanga ka galaan war manabadba yakaleeyay bilaawjana gundisho kirin dagaal gundaha ka dhashaan kaleey war dad soonkii suxuurti 7 isku kicinay salaanta dadka ay nabad leedahay war niman yahow golaha nabadda iyo horumarinta galmudug laga bilaabay asalkiisii hore galmudug nabad iyo horumar dhaqan uma leh wax kale nooga sheeg waxaad ku mashquulsan tahay mar baa laga meeriyaa muraadkaad leedaho si aan ciidu ku malayn marqaatina looga noqon macnaha hawshaada guud intaan miidiya la marin amaan Kalamaan matelin amaan Axmed Deero muran bulshada ugu sii macnaano Abdullaah si kala mutaxino salaadna afmay ku oran mihi iyo may artiyo ma yeelayadi galmudug maryaha qurux loo xirtay muraayada la hortaga waa in aynan ogolaan in midkeen uu midka kale u gafo mahadsanid ra'iisul wasaare aryaadaha madashan Kalamaan maxaa tiiriya ma yaade kuwi miideeyay maahino walaalaha muddo dheer meeshaana fadhiyaayo murankii niyadooda marag baan ka ahaaye maxaa maanta siyaaday aryaa marqaatigaad ku wacneeda meeshaadaas naga joog maay anisiin kule fadhiye mirigdi mashquulka badidana murankiin ma eedaaya geeka war waxa tiri alla oge irna maroogno dhulna maroogno miyaad ka wadaa arbariga balaaya naxtin lahaa lay xusuusi waxay ku beegan tahaana la yiri maalinkii qaraxu ka dhacay hirkaha iyo saamaha ardadi dhidhinheedo mulqaahad haalug looga dhigay waxaanse ka sii xanaaqay ali dheero dhahayo saraakiila kulayna shimaamulqii saraakiil naqdeen war tarsana u jawaabay oo bariga gudoomiyaha gobolka ahaa wuxuuna yiri caliyo ciyaalka dabka ku shubine isagu hays qarxiya duujina meel ku og yahay war maalintiyeeda ee sheeg shariif oo madawiir Soomaaliyeed ee hadali afka furday mayliya insha Allah shabaab damba lama arki doono yaari du'aawanka bedelan yaka aalay badan leey aryaa mugaaska kadib meeqay dileen warnimada Soomaalidu waxay ku maamahdaa wax tagay tiigsimaad ma leh wixii tagay waa tageen hadday tala rabtaa yaa wixii joogana waa joogan war kelmadan wixii tagay waa tageen ninkii kiis galaa isticmaala Soomaaliduna taariikhda ma eegto mana xasuusato waxaana la yiri taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene taariikhdu dadkay bartaa inay dowga toosan maraan war sidaa maahane ninna madiido ninna madoonto ninna madiido ninna madoonto weeye mugama naagay rabtaa kaliya warnimiyo ani warsiin haaye geeka maroodo ban habay balambaal magarya wali leeydegdana geega maroodo mansuura baydaw binaanja dik hakeeri reer baydaw oo dhan sagiir i kabiir nuswaad i rijal binaanka behen yeedo aboroow la hadhooyaw hoteelkii usidik hakeeri iritiisa dhoobaden dadkii abawroow soo dhoo abawroow nin qoboy abawroow nin haw ada walay sheegen usina khudbaydaada may erey airport lutiana ka bilaaw may ka seedafaday masaajidkii ukunta hoostis laakiin abniga hoogaha ya eri walaaska weydiiday abniga khatar ee lijeeda aryaa roobow anigu xildhibaan la waramayaan warkiisa jaclaadhay wuxuuna yiri dadkii shabaabkii ad roobow noo keentay ay laayeen magdhowgeeriyaan ka rabnaa how yiri wuxuuna yiri xoolaad magdhow nagu siisa ma hayside waxaad magdhow nooga dhigtaa shabaabka inta hirtay inaad layso haalug ka dhigto war xildhibaanku wuxuu yiri Abu Mansuur oo jinni ninkii keenay baa bixiya balaayada naadaha keenay dadka laysay naga bixiyo naga sife madaxweyne waa ku ogolaay hay'ama yirihe war may hay'lan arwaay walaagi tabi waaba taba inta lantiigside warnimayo xaliima yarey oo guddigii doorashada hogaaminaysa garoway ka degtay xildhibaan baan lagu soo dooranayaa kolleeyba xildhibaanka la soo dooran doono waa wasiirka qorsheynta Jamaal oo beesa siistay booska meeqow ka baxshahe war xildhibaankii kursiga iska caasilay oo dahar la dhahay qusulka Jabuuti laga dhigay lacagna waa qaatay war horaa loo yiri lacag waa qaadasho laakiin xildhibaanku lacag ma qaado
badan buu yiri maadinka ku nabaya asagu hadda xil iska casilay xaw xil kasi yar u qaata minanmaha xeelado ku jiran ariyaa war guddiga arrimaha bulshada aqalka sare suuqa bakaara waxa laga qabtay dheheen burcad ayaa ku soo batay dheheen marka suuqa bakaara haddaan la rabin in bamba turki oo ku soo noqdo degdeg waxa looga qabtaa ayay dheheen war aniga waxaan la yaabanahay aqalka sare waxa ay qabtaan war madaxweynihii hore xildhibaan xasan sheekh maxamuud maanta xisbigiisa shiray khudbadna waa u jeedi wuxuuna yidhi haddaan xisbigeennaani ku guulaysano talada calanka waa qaadaynaa waxaanna geynaynaa somalilan maadaama ay iyagu shalay keeneen muqdisho si midnimadii u soo noqoto hadda ka hor intuu xilka hayay muxuu u geyn waayey calanka hargeysa war guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed amar kululba soo saaray wuxuuna yidhi dugsi aan calanka soomaaliya ka taagnayn haddii la arko tallaabo culusaa laga qaadaya aryaadhaha anugu waa la qabaa ilmaha dugsiyada dhigta calanka madow maahina calanka soomaaliya indhahoodaba ma saari mugga si ay u bartaan ha loo suro meel walba war calanka waddanka da'yarta soo koraysa adeeg baa lagu baraaye dirqi iyo qasab laguma baro yaa midila kororgahe war galmudug waxay tidhi xildhibaanada aqalka sare ee galmudug laga soo doorta haddii aysan wax ka qaban khilaafka galmudug dib dambe u soo dooran mayno war galmudug hal shay meel ku qabado karo may kala sheegtay gabarta arwar kaloo la yaabaan maqlay nin muustikeestaha gabar sacuudiyaaniya soo doontaa la yidhi kadibna maxkamadaha xukunta inaan gabarhtaas la sii karin ninkaas waa faasiqay dhaheen idinkuna waxaad dhahdeen fanaan weeye war waa la yaabe ma 4.5 yaa xagga tegey war arrinta yaab kale imaaraadkay ka dhacday islaam baa ninkeedii telefoonkiisa baartay tifowya malaariya may ka baartay warkaan la dhexgelina noo sug maxkamadu ka dacweeyey 3 bilood oo xarigaa lagu xukumay naagtii xiriirada shakhsiga ah oo daawatay dartiis waxa leeyahay waa xiranta war meesha dumarka waa lagu dulbiyo racfaan ka qaadayna nagarta harmaad naftayda harmiiday haqabtiraysa harmiiday habaar ha kugu dhace teleefonkan la fiirinayo qoysas tiro badan baa u dumay waana anshax daro war teleefonka wiin baan gaday kiiday ma fiirida kiija ma ka kaato khayr beelada war way ka shakisantahay naga ka soo wacay ka fiirinaysa war la isma ilaalin kare in la is aaminaa karoon warta qoyskan kalsooniyo ka dhaxayn ma wada joogi karaan qofka raba qof ilaahay wuxuu u baneeyay inuu ka celshana waa aqli xun yahay war ragaada jooga lama aamini karo muga hadaan lees aaminin ma lees ilaaliha qandaan ku muhiim badan mal is ilaali karo edeb halka rooga ii aamin in kalsoona war garan mayna waxaad sheegtay naga tagniyo jaad gorgorad leedahay aryaa iga tag tiirku boode war naga tag maseerow